السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka tagi daawaysto abno official wadna janalka taa ku sabta subscribe saarsi ku soo gaara muuqaalada xiga. magacaygu Cabdiraxmaan waxaan soo wadnay taxanaheena ahaa sidee ku sameyn kartaa dakhli kala duwan aan wax loo yaqaan passive income. waxaan soo sheegnay inaan ula jeedno in hal meel ka badan ay ka soo galayaan dakhli adigoo shaqadaada joogo aad meel kala duwan dakhli ka samayso ama sidoo kale adigoo shaqadaada aad joogin oo ganacsi aad leedahay joogto haddana meel kala duwan aad dakhli ka samayso ilaa iyo dhowr muuqaalo taxana ayaan ka soo hadalnay qayb kala duwan baan ka soo hadalnay qaybtan waxa ugu hadlaynaa wax loo yaqaan real estate macnaheedu waa in aad ka faa'iidaysatid dhulalka haddii tahay iibinta dhulalka haddii tahay kireynta guryaha ka soo qaad waalidkaagu ama aabahaaga ama hooyadaada waxay leedahay dhulal badan haddana ma ka faa'iidaysato asagana ma ka faa'iidaysto aabahaaga laakiin adiga ayaa ugu faa'iideyn karo qaabkee ayaad ugu faa'iideyn kartaa ka soo qaad aabba wuxuu leeyahay ilaa iyo 4 boos ayuu leeyahay boos baa idinka degantihiin boos waxay ku yaalaan degmooyinka kuwa ugu dhigdhow ama meelo fog ku yaalaan waa kuwa lacag ay ku jiraan iyo kuwa lacag aysan ku jirin celcelis ahaan waxaa la samayn karaa in guriga markii la dhiso waxaa la gelinayaa kiro 4 qol 5 qol ayaa ka soo baxayso okay even haddii uu awoodo guriga idinka aad degantihiin nusbooska aad idinka degantihiin ayaa waxaa laga dhisayaa yacni 2 piano oo ka kooban 4 qayb ama 4 apartments okay 2 piano markii 4 apartment laga dhiso meeqa waay macnaha hal apartment idinka bish yani aad degaay hal apartment idinka degaay waxa soo haray 3 apartment soo haray tusaalaha ka soo qaad hal apartment waxa laga helaa bishii $200 okay $200 ku dhif 3 apartment macnaha bishii waa $600 yani waa fursad kale oo banaan oo ah in dakhli yani madax banaan uu ku soo galayo bishii easy the best wax ugu fudud waxa waaye maanta adigoo kari kara in ka soo qaad aad ka iibsato ceelasha ama dareedisho adigoo xamri joogo ayaa samayn kartaa ceelasha dareedisho meelaha kugu dhow tabeelaha kale ka soo qaad dareedisho kale ka soo qaad ayaa waxa ka iibsanaysaa dhul 12 ku joogo 15 ku joogo 10 ku joogo 3 ku joogo ayaa iibsanaysaa waa buux يعني ربع ديتها نص ديتها بوسط معنى هاد بس كل شيء لكن يعني قيمة أو كلا بحياة كسوقات نسبوسكي آيات صلاحان وحكت استي لحقل وجينكت مدامة يعني قبش قياتها آدم قلي كرن إنها تخمر قرشات وذق لسه وآدم سمين كرن وحاسمين سمرك يعني محقل بيسي لين مبتال اسكما والولي قادوية ده وحول بيسي لين ميل هو سوحول بكسب لعودان قوف كرا مركز ميل سر يعني جاري كرا تمام جيكتي ayaa ka dhistay 6 qolo jiikada ka dhistay 6 qolo jiikad markay ka dhistay ala qol waxa lagu ijaaraa maxalada ceelasha markay tahay ama diriish markay tahay kale waxa lagu ijaaraa $30 bishii lagu ijaaraa qolkii okay $30 markaan aan ku ijaaro maxalada hayay 6 qol bishii waa $180 waay $180 oo aniga dakhligay ka baxsan ayaa ani isoo galay okay $180 oo aniga dakhligay ka baxsan ayaa ani bishii isoo galay soo waa fursad kale oo ani ibanaan oo aan wax ku qabsan karo waxaan ku qabsan karaa waxyaabo badan fursado badan ayaan ku qabsan karaa maskaxdan wuxuu ilaahay ku siiyo waxa waay in adiga ku fikirtid oo aad ku xisaabtantid hal abuurnimaduna ma ahan wax meel isaga qoran oo abuuga ka soo aqrinaysid ama wax yani isaga qoran maahan waa wax adiga maskaxdaada aad ka fikirtid oo aad wax hal abuur leh aad la imaadid okay waa habka mid ah ugu sahlan ee qofku ku sameeyo xitaa shaqaale aad tahay waxa raadi kartaa
5 sano 6 sano gudahood waxaa ku raadi kartaa ama 2 sano gudahood waxaa ku raadi kartaa dhul qiimihiisu raqiis yahay 6 qolo jiikad ka dhistid infar haddii bishii $150 oo meel cidlo ay kaasoo galayso ama $100 bishii meel oo macnaha kale ay kaasoo galayso still advance waa faa'iido kale waa okay waa hay faa'iido kale oo aad wax ku qabsan karto oo aad waxyaabo badan aad ku fulin karto oo waxyaabo badan aad ku samaysan karto haddii tahay kireynta iyo maxaladaha sidoo kale fursado ku banaana waxay tahay in goobabka magaalada banaankeeda ku yaala aad maalgashi ku samaysid qaabkee aad maalgashi ugu samaynaysaa aad ay raqiis u yihiin goobabka ku yaala magaalada banaanka adigoo ku helaya $500 $400 $1,000 $800 okay goob xiran oo kale haddii aad gedtid ama ka soo qaad 5 boos oo kale isku xiran haddii aad gedtid soo يعني بعتص أم investments أم مالقشيس 3 سنة 4 سنة أم هل سنة كده حلقيها هابو 2 سنة كده إن العتاد كوبرته وبوس كده استحب قلعك بحسي بري وجار $1 بوس كده كون شاب قلعك بحسي بري وجار $6 ما بهنتي سو يعني ومحل ده هاي فرصة كده أو بنان وكوسة لسه إن يعني أسميسي passive income waxaan rajeynayaa inaan muuqaalkan wax badan aad ka faa'iiday wax allaale wixii aad u baahan tahay firigelintooda iyo la tashigooda waxaan diyaar ku lahay inaan kaa caawiyo adigana waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saartid muuqaalada xiga taxanaha la socdid muuqaaladii hore ee ku dhaafay haddii aad linkiyada hoose ka daawo sidoo kale waxaa igala soo xiriiri kartaa telegram linkiga ee hoos yaala wax allaale wixii aad u baahan tahay warbixin aad u baahan tahay waxaan diyaar u ahay inaan kula soo wadaago insha Allah adigana meeshaas kala soo wadaago wixii su'aalaha qabin commenting soo ay ugu wareegi kartaa channelkani aha ilaawid inaad subscribe saartid insha Allah soo